waxaan kuu soo gudbinayaa xikmado buuraha ka culus, kelmado biyo dahaba lagu qori lahaa, iyo weliba dardaaran waayo aragnimo ku dheehan tahay. waxaan joognaa duni ay khatar tahay in lagu noolaado, sababtuna ma ahan dulmiga ay falayaan sharwadayaashu, ee waa ka aamusidda akhyaartu ka gaabsanayaan ka hadalkooda. noloshu ma ahan mid adag oo murugo badan, laakiin quluubteenna ka fog xiriirka Rabbi ayaa ku jeebadaysan welwel iyo walbahaar. haddaba hagaaji xiriirka ka dhexeeya adiga iyo Rabbiga, sababtoo ah ma murugoodo qof Rabbi garabkiisa yahay. diintu waxay i bartay in cidda keliya ee nolosha ii qurxin karta, farxad aan ka heli karo, baahidayda dabooli karta ay tahay barbaariyaha dunidan unkay, aniga igu abuuray, hadhowtina xaggiisa aan u laaban doono. sidaas darteed Rabbigay wuxuu hantay qalbigayga, xaq buuna u leeyahay inaan raalli geliyo intaan awoodo oo aan kala kulmi doono. waxaan ku noolahay duni aan dadaalkeenna ugu badan ku bixinayno si ay noogu dhammaystiranto, laakiin nasiib darro waxay nugu noqotay midaan abaal lahayn oo iyadu isqabiyaynaysa. maxaa yeelay horay looma arag oo lama xusin aadami noloshani ay libinta wada siisay. haatan sadaal iyo tacab badan kadib waxaan ku waaya arkay in barbaariyihii dunidan abuuray aanu uba unkin in noloshan lagu raaxaysto, balse uu inoogu tusaaleeyey inay tahay oo kale deegaan waddo ku yaalla oo loogu talagalay inay ka sahay qaataan socoto safar dheeri sugaya. haddii aad saaka soo toostay adigoo caafimaad qaba, geyi nabdoon jooga, nolol maalmeedkaagana kuu kaydsan yahay, ku mahadi barbaariyihii dunidoo dhan lugahaaga keenay. waxa aan bartay in mar walba aanay qasab ahayn in aan guulaysto, laakiin ay waajib igu tahay inaan mar kasta ku fikiro sidii aan u guulaysan lahaa. liibaanta nolosha guurku ma ahan inaad ku doorato lamaanahaaga tilmaamo ay naftaadu jeclaysatay oo aad miisaan uga dhigtay muuqaal qurxooni, jeebbuurni iyo weliba dano kale, laakiin waa ku doorashada wehelkaagu inuu yahay mid kuu sahli kara ku dhaqanka diinta, ka dhowrsashada Rabbi, sidoo kale sabab kugu noqon kara inaad wada gashaan janno aydin weligii kala dhimanayn. qof kasta oo ay murug ku hayaan duruufaha wakhtigu, Rabbigeen farxad ha uga buuxiyo qalbiga, farxaddaasoo la qiyaasa inta uu gudaha ka holcayay oo weliba aadami xaaladdaasi la dareemayey aanu jirin. haddii aad ogaan lahayd sida degdegga ah ee ay dadku ku ilaawi doonaan markaad dhimato kadib, marnaba iskuma hawsheen inaad cid raalli geliso ama aad qanciso alle oo keliya mooye, kadibna ciddii xaq kugu leh. marba haddii aadamigu u arko inuu ku caawiyo culays iyo dhib, go'aanba ka gaar inaad wax uga baahato oo aad isaga kalifto. marnaba kuma suurtoobayso inaad qanciso dadka oo dhan, sababtoo ah waa arrinay xitaa awood u yeelan waayeen ambiyadu. laakiin halbeegaagu ha noqdo raaligelinta Rabbi iyo qancinta naftaada, waxba yaanay saamayn kugu yeelan afkaarta dibadda kaaga imaanaysa. ma nolosha ayaa kugu adkaatay oo albaab weliba waa uu kugu xidhmay? ha niyad jabin, ogow allihii muuse badda ka fayday xilligii murugta iyo dhibaatada inuu awoodo albaab walboo xidhmay inuu kuu furo. ha ugu dul socon dhulka adigoo kibraya oo isqaadqaadaya, ileen awood aad ku jeexday dhulka ma lihide, buurahana dherer ku gaadhi maysid. marnaba kuma suurtagal ma aha inaad ku qasabto ruux si uu muslim u noqdo, laakiin si ka fudud habdhaqankaaga wanaagsan ee islaamiga ah ayaa ka dhigi kara muslimka ugu wanaagsan. noloshu waxay i bartay inaan qalbigayga ka dhigo magaalo, guryaheedu yihiin jacayl, waddooyinkeeduna saamax. marnaba laguma khaldi karo aadamiga caqliga u saaxiibka ah inuu dantii loo abuuray kaga mashquulo adduunyo la tusaale ah, riyo aad hurdo ku dhex aragtay ama hadh tegi doona oo aad harsatay. waan qoslaynaa qayrkeen oo la sii wado, qalbila'aanteenna dunidan u qornullaa. qofkii camal wanaagsan shaqaysta, labyo dhaddi kuu doono ha ahaadee, isagoo iimaan leh wuxuu ku noolaanayaa nolol wanaagsan oo la hubo, waxaana lagu abaalmarin doonaa wanaagguu sameeyey mid ka weyn. 18 ilaa 24 sano waa da'da aad awoodid inaad dhisto ama burburisid mustaqbalkaaga.
waxay maalmuhu ku soo marayaan oo ku dhaafayaan adigoon dareensanayn, laakiin muddo kadib waxaa kugu soo kadin doona wakhtigii ay kaaga dhammaan lahayd dunidan oo aad u jihaysan lahayd meel aanad weligaa ka soo noqon doonin. Haddii aad doonaysid inaad kasbato quluubta dadka, u samafal. xaqiiq qofkaad daryeelatid waad hanan qalbigiisa. Ina aadamow, hooyadaa waxay ku dhashay adigoo ooyaya, dadkuna agtaada ay faraxsan yihiin. haddaba ku dadaal amarka Eebbe oo ku dhaqan ayaamaha yar ee aad nooshahay, si maalintay ooyayaan adigu aad u faraxsanaatid, jannana lagugu bishaareeyo. haddii aad rabtid inaad hadasho, ka hor ka fikir in oraahda aad dhahaysid dani kuugu jirto. haddii aanad waxba ka faa'iidayn, aamuska ayaa kuu khayroon ee ka dhowrso. dadka badankoodu waxay la qiiraysan yihiin duruufaha adag ee waddanka ka jira, iyagoo jilaya waddaniyad iyo daljacayl. laakiin waxaaba iska yar inta ka shaqaynaysa wixii dalku ku horumari lahaa. haddaba waa su'aale, madadyow shisheeye ayaa inoo iman doona haddii aynan innagu isu tanaasulin oo waddankeenna ka shaqayn. mar haddii aanad naftaada ku mashquulin jidka wanaagga, xaqiiq iyada kugu hagi doontaa jidka xumaanta. waxaan kugula dardaarmayaa intaad nooshahay, weligaa ka digtoonow inaad ku tiirsanaatid aadami kula mid ah. xilli hore toos, dadaal, shaqayso, dhididkaaga wax kula soo bax, waana taas sharafta laguu sheegayo. maalin kasta oo aad nooshahay waa gallad Eebbe ee ka faa'iidayso, oo ku mahadi barbaariyihii fursaddan ku siiyey. waayo waxaa jira kumanaan dhulka hoostiisa jooga oo jecel in hal maalin dunidan loo soo celiyo si ay uga sahay qaataan. ka hor intaadan falin ficilkaaga ka fiirso, sababtuna waa inaad helaysid abaalmarintiisa. hadduu khayr yahayna abaalkaagu waa wanaag, haddii aad xumo fashidna waxaad ku mutaysanaysaa ciqaab. markaa caqligaaga kaashoo dooro kii kuu roon. haddii aad doonaysid inaad dadka ugu sarrayso, qur'aanka baro oo ku dhaqan, sababtoo ah waxaad dhowrtay boqorkii dunidan ugu sarreeyey hadalkiisii. rabbina wuxuu kuugu abaalgudi inay kor kuu eegaan makhluuqiisa kale. aamusnaanta badani waa sifo ay leeyihiin dadka shakhsiyadda miisaanka leh u saaxiibka ah. sababtu waa intaad wax faa'iidaysanaysid ayaa ka badan intaad hadli lahayd oo dadku ka daali lahaayeen hadalkaaga, kadibna aad xikmad guuri lahayd, qiimahaaguna hoos u dhici lahaa. aad baa u mahadsan tahay. muuqaalka leeg saar si uu asxaab badan u gaaro, siina sheergaree si walaallo sida adigoo kale u wanaagsan aan u hello, nana soo falowgaree si muuqaallo noocan oo kale ah mar walba aad ula socotid.